السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونسد وضياشنا قيمها يقاهنا وذا ميل باجوكتان وحد كسور دواتان مقال عصب مقال كان إن شاء الله وحن كبردونا قاب كفرت تليفون كاغ اللي بدلو بار وليبا اللغان دقا فرق روح بدن إسلام كان استايل طبعا تلكاغ فرت كجرتا وهل نوع كمان دوانا dadka kale farta ay adeegsadaan marka ay wax qorayaan balse abkan waxa uu ku suurtagelinayaa inaad adeegsato noocyo kala duwan oo far ah waliba hab iyo style qurux badan aadna u soo jeedin doonta dadka arkaya qoraalkaaga waxa xusid mudan fartan in lagu rakibi doono keyboardka taleefankaaga si fududna aad mar waliba uga xulan doonto farta aad rabto marka aad adeegsanayso qoraalkaaga haddii uu yahay noodka mobilkaaga ama fariimahaaga la xiriira baraha bulshada. haddaba si aad u degto abka loo yaqaano Fontes waxaad ku qasbantahay marka hore inaad soo gasho Google Play Store-ka kadib qaybta search-ga waxaad ku qoraysaa magaca application-ka oo ah Fontes kadib waxaa lagu soo bandhigi doonaa application badan oo ku saabsan farta iyo qaababkeeda. haddaba waxaad ka doorataa midkan saddexaad oo background-kiisu uu yahay gaduud iyo buluug isku jira kaas ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad dhahdaa install intaa kadib waxaad leedahay open kadib waxaad dooranaysaa oo aad ku dhufanaysaa qaybta ay ku taalo activate Fontes ee keyboard halkaas ayaad joogsiinaysaa kadib waxaad on ka dhigaysaa Fontes ee keyboard kadib waxaad leedahay okay dib u laabo mar kale waxaad ku dhufanaysaa qaybta labaad oo ay ku qoran tahay switch to Fontes kadib waxaad dooranaysaa qaybta ay ku taalo Fontes keyboard oo aad tan ugu sareysa dabcan imika si toos qoraalkan waxaa lagu daray keyboardka taleefankaaga qaybta sare waxaad ku aragtaa farta oo noocyo kala duwan leh. dabcan fartan waxaa si toos ah lagu daray keyboardkaaga markastoo aad isticmaalayso qoraalkana style-ka aad xulato ayaad wax ku qori kartaa. tusaale haddii aan tijaabino Facebook ama WhatsApp oo kale marka aad adeegsanayso far qurux badan ayaad isticmaali kartaa. tusaale iminka waxaan rabaa inaan tijaabiyo qaabka ay u shaqaynayso farta iminka aan ku rakibay taleefankayga. haddaba markii aad ku dhufato qaybta lagu qorayo qoraalka keyboardka qaybta sare halkaas ayaad ka xulanaysaa farta qaabka aad rabto inay ku soo baxdo. tusaale kan oo kale ayaad dooranayaa gaar ahaan farta loo yaqaano arrows kadib qoraalka bilow طبعا sidaas ayuu u shaqeeyaa abkan waxaan mar waliba u adeegsan kartaa qoraal kasta iyo fariin kasta aad ku qorayso baraha bulshada. fadlan hadaad ku cusubtahay kanaalka subscribe inoo saar muuqaalkan like inoo dheh
waayo laagtu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna waxayna naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo u baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha Allah mahadsanid in ka badan maliyuun jeer